marka hore aan iskiin baro waxaan ahay Cabdifatax Cali Cabdiraxmaan Boodhariga Caashiqa waxaan ahay nin Soomaali ah waxaan ka sii ahay nin Puntlander ah xukuumadda Puntland ee soo marta shacabka reer Puntland wax Allah ay wax u qabatay ma jirto tan labaad xukuumadda Puntland ama maamulka Puntland ama dawladda Puntland sideeda waxay ka shaqeysaa saddex degmo waa Gaalkacyo waa Garowe waa Boosaaso inta u dhaxaysa degmooyinka kale u dhaxeeya laami inta laami maray saddexda degmo u dhaxeeyana inkastoo ay dulman yihiin haddana duulduulku waa soo gaaraa muhiimadu waa laamigaas saaran tahay xukuumadda Puntland waxaan ognahay dhibaatooyinka ka dhaca Baargaal Xaafuun Xaabo Hurdiya Eyl Baran Hadaftimo Xudun Arboogeys Baasqoray hatta ceelaayada Boosaaso jambigeeda waxaan ognahay gabadha Xaabo laga soo qaado iyada oo laash lagu soo qaaday in isbitaalka Booso la keeno jidka inta ku jirta nafta bay isku naftaxdaa gabadha ay laga keeno ama wiilka gargoorka shabaagta ay dhaawacdo ay isbitaalka Garowe la keenaa qofka garaacad ku soo dhaawacma ama libaax badeed ku cuna ama gabadha ku foolata sida loo soo wada isbitaalka Gaalkacyo la keenaa sidoo gaarigaas uu raq leeyahay nafta jidka ka baxdaa dhammaan agabkii isbitaalada dawooyinka hatta waxbarashada u fiirso dhammaan degmooyinka ku soo sheegay waxbarashadoodu waa nafti waxba kama wax Allah ay waxay bartaan ma jirto sababtoo ma bahaystaan bar service-kii ma haystaan wax baran lahayn malahan wax ila dhaqaale oo ay si khaas ah u leeyihiin ama soo gaarayeen waxaan la yaabanahay dhibaatooyinka reer Puntland haysta ama xukuumad kasta oo Puntland haysta wasiir hadhiin madaxweynaha hadhiin ra'iisul wasaaraha hadhiin baarlamaan hadhiin nin waliba inta jeebkiisa duqa magaalada xitaa hatta gudoomiyaha gobolka nin waliba meeshu ka soo gaaro ka goosta jeebkuna kasta waa dhibaatooyinka haysta reer Puntland anu Puntland daraan mana ihi dadka ku dulman Puntland waxaan ka dhashay qabiilooyinka ugu tunka waaweyn ugu hantida iyo maalka badan haddana aniga waxba i tari mayso sababtoo ah waxaan arkaa oo ii muuqda dad badan oo walaalahayo ku dhibaataysan Puntland waxa ii muuqda dhibaatooyin badan oo aafeeyay dadka Puntland anu kama hadlayo beel ama kama hadlayo qabiil waxaan ka hadlayaa shacabka reer Puntland waa shacab aad u macaan waa shacab leeyin ah waa shacab aqoon iyo garasho leh waa shacab talabaad xukuumadaha Puntland soo maray waxay ku doodaan amni baanu keenay war amniga yaa keenay amniga Ilaahay baa keenay ka sugowna shacabka reer Puntland iyaga ah shacab u samaysan amni waa shacab ilbaxa waa shacab aqoon leh waa shacab ganacsi waa shacab xadaariya waa shacab jecel inay adduunka hiigsadaan no aniga siyaasi ma keenin nabada adduunka qaadana aniga iyo ma baxdaba aan ka gudbo qodobka labaad dhaqaalaha Puntland waxa uu ku baxaa bal Ilaahay baan ku dhaashay u fiirsada hadalkayga Puntland dekada Boosaaso eelaboorka kantaroolka iyo dawladda hoose waa afarta albaab ee dhaqaalaha Puntland ugu badan oo ka soo galo xagee buu ku baxaa xagee buu maraa Puntland sanadkii dekada Booso waxa ka soo baxaa $100 milyan xagee baa la mariyaa hal iskuul oo gobolada Puntland maanta ka furan oo bilaash ah oo ummadda lagu talagalay ma jira u fiirso isbitaalka Boosaaso haddii aad maanta tagtid qof dhaawacma hadii la geeyo dawada adiga iibsanaya anke service ma helaysid u fiirso isbitaalka Garowe kan Gaalkacyo u fiirso waa saddexdii la lahaa magaalooyin aan lahaa xukuumaddu waa basaaran tahay saddexdaana waxa lagu cunaa xaqa iyo dhiigga ummadda reer Puntland anigu shakhsi ma cambaaraynayo qof aan gooni u taageeraynaana ma jiro laakiin waxaan ka hadlayaa dhammaan siyaasiga reer Puntland waa caloosh u shaqaysta waxaad qiimeysaan 16 sano 17 sano bay Puntland leedahay hal oo Puntland laga qoday ma jiro iska daa laami meel la saaro iska daa in isbitaal meel la geeyo iska daa in wax isku goobo iskuul waxbarasho laga furo waxaas oo dhan ka dhig magaalada Garowe iyo magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Boosaaso iska daa wax kale biyuhu waa lacag waa la iibsadaa $20 $30 baa reerka laga qaadaa
هل عين أو بلاش أو دولة بوتلان قضية أو بوتلان قشم يدتك غير بوتلان إني كل فعانو أو كورا بسان مجرتو عشور بالله يقعدا عشور تعيد وحلو قبتها مجرتو دوغا مقالة قدوميها قولك iyo madaxweynaha u dhaxaysa waa dhexda lagu dhusada saddexdan baaqay sida khalaas waxa ay sheegtaan hal gobol oo Puntland kamida oo maanta wax loo qabtay ii sheeg ma jiro hadaa dadka reer Puntland tahay wareer iyo sidan waa kharad waxa lagu qoranayaa reer hebel baad u jeedaa ama waxa lagu leeyahay hadba yani qabiil baad duraysa war hal booli inay xalaala ma dhasho نو بوتلان waxaan u sameeysanay inaan ummadeena iyo dadkeena iyo ehelkeena aafada Soomaali weyn maanta gaadhay in aynu kaga badbaadno walaalaheen Soomaaliyeedna aan wax u qabanno waana u qabanay oo ma sha Allah maanta Puntland Soomaali weyn oo dhan baa ku nool oo ku ceesta mana aha wax xukuumadi keentay ma aha wax siyaasi aniga ii keenay dadkayga waxay u sameeysan yihiin waa dadkayga dad amniya dadkayga dad nabadeeda dadkayga dad macaana dadkayga ah dad garashiyo aqoon Ilaahay xeel dheer siiyay shacabka reer Puntland waa dad dulman oo la dulmiyay wax cid kale lama dulmina waxa dulmiyay nin siyaasi oo iyaga ka soo dhex baxay ma aha qof dibad cid kaaga ma iman waxaan arkay magaalooyinka Puntland lagu mudaharaaday oo leeyahay anagu xamar dooni mayno dawladda Xasan Sheikh Sidaw maxaa Xasan Sheikh ka galay maxaa dawladda xamar ka galay kaad xaq ku leedahay madaxweynaha Puntland baad xaq ku leedahay isaga ku mudaharaad gobolka joogtid baad xaq u leedahay gudoomiyaha gobolka ku mudaharaad duqa magaalada ku nooshahay duqa haysto ku mudaharaad isaga xaq u leedahay isaga cashuur ka qaata isaga ganacsiga xukuumadda u dhibatay isaga shaqaale ku ah shacabka reer Puntland horta ha aamineen qofka siyaasiga inuu iyaga u shaqeeyo shacabka reer Puntland ha aamino aniga gaas anu u shaqeeyaa madaxweynaha ku-xigeenka camay anu u shaqeeyaa gudoomiyaha baarlamaanka anu u shaqeeyaa anigu ma dooran aniga isaga ii yimi gaas anu Mareykanka ugu yeeran gaas isaga ii yimi oo yiri dooro rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii yiraahdo doorta ha dooranina idinku iska soo dhaxsaara buu yiri qofkii adaana yiri doorta anu kuma doorteenba adaa laakiin shalay ii yiri dooro dhibaatada maanta haysata reer Puntland ma aha wax siyaasi noo keenay wax shacabka reer Puntland laga arkay weey dhibaato aan iyagu isu geysano uma timaado maanta adduunka waxaan iga dambeysay Puntland 16 sanadood waa dad aqoon leh waa dad ganacsi waa dad ilbaxa waa dad xadaariina adduunka bari hore inuu dhaaflaan bari hore adduunka dhaaflaan 16 sanadood ma joogna meesha Cabdullaahi Usmaaninta la doortay Ilaahay jannada raxmaha siiyay meeshii uu taagnaa ayaynu ilaa maanta taagnaa hal sinti oo nagu soo kordhay ma jiro wax inaga naaqasay mooyaan war hantida war dhiigeen waa la qunaa war waxaan ogahay anigu doorashadii gaas iyo faroole 560,000 oo dollar inay hal habeen baxday faroole ma Australia kala yimid mise gaas ba dowladda federaalka iyo Mareykanka kala yimid lacagta kala mu iman waa dhiigi iyo cashuurtii ummadda reer Puntland weey waxa meesha lagu burburinayaa bal hal habeen 560,000 oo dollar haday baxday ma kula tahay Garowe inay degan yihiin faamilo oo dalka ay degan yihiin oo ay boos degan yihiin oo ay bayra degan yihiin oo ay baran degan yihiin oo ay hadaftuma degan yihiin oo ay laascaano degan yihiin dadkii isirka iyo abka u lahaa maamulkan in la sameeyo oo baahan Garowe magaalada lagu dooranayo caasimada Garowe caasimada Puntland haddana ma kula tahay boqolaal jees oo baahan inay ku noolaayeen cashuurna laga qaato habeenka 560,000 ee dollar baarlamaanka Puntland la siinayo gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu noo qabtay baarlamaanka Puntland maxay qabteen balidikeedu weydiiyay maxay qabteen waxaan marka ugu dambeyntii shacabka reer Puntland waa dad aad u macaan waa dad wanaagsan waa dad yani diin u saaxiiba waa dad iimaan iyo damiir leh waxaan ka codsanayaa inaad meesha ka kacdaan oo siyaasiga aad dooranaysaan shacabka reer Puntland isaga aad ku mudaharaadaan oo madaxweynaha lagu mudaharaado oo gudoomiyaha baarlamaanka lagu mudaharaado oo madaxweynaha ku-xigeenka lagu mudaharaado oo wasiiradan tuugada ay dhiigina cabaya Puntland waa loogiya waa la kala qaybsadaa afarni ma aha qabiil ma jiro war qabiiladu waa dulman yihiin yagii baa baahan ma fahatay waxa laga yaabaa gaas ehelkiisa ugu dhow inay gaalka ay joogaan oo ay baahan yihiin ma aha qabiil laakiin waa siyaasi
أفرني لحن أو سياسيين أنا كلا جوستا إحنا عندنا سياسيين تام حق نحنا سيدي حق عندنا هذه كلهم يدور قنايا محل يبغى شعب قريب بتران تدأدوا معان باتين تطلق اللباتين توجد أسكيل عليه وقدمنتي مدحوينها حكومة بتران ومهرة مدحوين القاس كل يوم مدحوين كوينك عمي قدوميها برلمان كما يسألوا ما قال ما نربينا هذا برتين وحنوش اللي برلمان وسيرة لما أنت إلهي كبقى إلهي القرآن سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن جنة هي المأوى والإلهي كبقى